madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo saaka soo gaaray magaalada London ayaa waxa airportka weyn uga hortageen qaar kamid ah jaaliyada Somaliland iyo waliba mas'uuliyiin ka tirsan dawladdiisa oo ku sugnaa dalkan Britain. safarkan madaxweynaha ayaa waxa ku weheliyay marwadiisa Marwa Aamina Waris iyo qaar kamid ah golihiisa wasiirada sida wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga, wasiirka qorsheynta iyo qaranka, wasiir ku-xigeenka waxbarashada. madaxweynaha oo aad u faraxsanaa ayaa ka dhex muuqday jaaliyada dhexdooda isagoo gacan qaaday dadkii soo dhaweeyay ayaa markii dambana la kaxeeyay maadaama uu daalnaa isla markaana habeennimo ay soo safreen. waxaa markii dambe aan la kulmay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Dr. Maxamed Cabdilaahi iyo safiirka Somaliland ee dhawaan madaxweynaha u magacaabay dalka Ethiopia Aadan Nuux Duule iyo Dr. Maxamed Rashiid Sheekh Xasan oo isna ah la taliyaha madaxweynaha ee umuuraha caalamiga iyo aqoonsiga Somaliland. waxaana wasiirka aan weydiiyay safarkoodan ujeedada safarkan uu hogaaminayay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ka yimid Somaliland waxa ujeedadeedu ugu weyn tahay waxa weeye sida caadada ahayd waxa jiray safarro isweydaar ah oo had iyo jeer dhexmara dawladda Ingiriiska iyo dawladda Somaliland. intii dawladda cusub ay ka dhalatay Somaliland waxa dalka boqosho ku yimid wufuud badan oo dalka Ingiriiska ka socota oo ay kamid yihiin safiirka dalka Ingiriiska u fadhiya Addis Ababa iyo mas'uuliyiin kale oo ka timid meelo kale. marka arrimaha safarkan arintaas uu ka jawaabaya madaxweynuhu intii halkan joogo wuxuu kulan la yeelan doonaa mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Ingiriiska oo ay kamid yihiin wasiirka dawladda Ingiriiska oo qaabilsan xagga Afrika arrimaha dibadda iyo mudanayaal ka tirsan baarlamaanka dalka Ingiriiska oo ujeedaduna tahay in laga wada hadlo si kordhinta iyo ballaarinta xiriirka sokeeye ee ka dhaxeeya dawladda Ingiriiska iyo Somaliland oo dhinacyo fara badan leh. sida laga wada qabo dawladda Ingiriisku waxay qayb weyn ka qaadatay barnaamijka dimuqraadiyeynta ee Somaliland waxay kaalin weyn ka qaadataa horumarka xagga waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyaha ee Somaliland ka socda. waxa kale dawladda Ingiriisku ay gacan weyn ka geysatay had iyo jeer barnaamijka tababarada iyo kordhinta xagga nabadgelyada iyo ciidamada nabadgelyada dalka Somaliland. maadaama dalkan Britain ay aad ugu badan yihiin jaaliyada Somaliland madaxweynaha qorshihiisu ma ku jirtaa inuu la kulmo dabcan mar haddii madaxweynihii Somaliland uu halka yimid sida caadada tahay waxa uu kulamo la yeelan doonaa saaxiibada ay Somaliland ku leedahay dalkan Ingiriiska iyo jaaliyada reer Somaliland halka joogtaba oo ujeedadu tahay in laga wada tashado sidii fikir iyo afkaar la isku weydaarsan lahaa ku salaysan horumarinta dalka arrimaha dalka ka socda hadday tahay dhaqaale hadday tahay siyaasad iyo hadday tahay xagga nabadgelyada intaba. jaaliyada Somaliland oo aad u soo dhaweeyeen doorashadii uu ku soo baxay madaxweyne Siilaanyo ayaa sida uu ii sheegay qadar oo isagoo ah madaxa guddiga qabanqaabada munaasabada ballaaran ee jaaliyadu kula kulmayo inay ka qayb qaadan doonaan fanaaniinta reer London iyo dhammaan jaaliyada oo isaga kalimaan doonta gobolada dalka Britain. ugu horeyn waxaan mahad celin u soo jeedinayaa dadweynihii tirada badnaa ee madaxweynaha ku soo dhaweeyay maanta magaalada London anigoo ku hadlay magaca guddida qabanqaabada. waxa kaloon halkan doonaya inaan ka iclaamiyo in shacbiga reer Somaliland ee ku dhaqan dalkan Ingiriiska inuu madaxweynaha iyo waftigiisu ay la kulmi doonaan maalinta Sabtida ee fooday nagu soo haysay bishu tahay 27 bisha halkaas oo ay madaxweynaha iyo waftigiisu ugu xog warami doonaan barnaamij ballaaran ay guddida qabanqaabadu soo diyaarisay oo ay dadka soo bandhigi doonaan haddii la yiraahdo waa markii ugu horeysay oo safar uu ku yimaado dalkan Britain isagoo madaxweyne ah madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo isla markaana uu hogaaminayay wafdi ballaaran oo kala soo kictimay magaalada Hargeysa iyagoo ku soo hakaday magaalada Addis Ababa xarunta dalka Ethiopia. haddaba waxa madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu la kulmi doonaa jaaliyada ballaaran
ee Somaliland ku nool dalkan Britain maalinta Sabtida fooday nagu soo hayso isla markaana ku beegan 27ka bishan aynu ku jirno November. Ibrahim Umar Baafe wararka Universal London.